والحالة كم مقدور وهرادية جاري للعلاوي هاي ميليشيات كالشباب أي كسر وريرين مجال بلعد يقول كشباب الله دحى. bilowga socdaal saacad ka yar qaadan doona oo ku tigeen magaalada Balcad halkaas oo kooxaha khawaarijta ah ay ku soo qaadeen weerar ay fashiliyeen ciidamada xoogga dalka meedkooda ayaa miro badadsan gudaha magaalada Balcad la buriyo anaga jaban wix loo jiro maacuun baradhada gaari noociisa leeyahay calaawi oo laga soo buuxiyay xoolaha qarxa ayaa ku qarxay halkan oo bartamaha magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ciidamada ammaanka ayaana ciirsanayay xilliga gaariga uu qarxay maadaama kooxda argixisada ay ku guul daraysatay inay ka soo gudubto halkii dagaalku ka bilowday oo ah kantaroolka laga soo galo magaalada qarax ayaa geystay khasaare hantiyadeed balse ma jirto cid ku dhaawacantay ama cid ku dhimatay ha ahaan ciidamada ama dadka rayidka ah waxaana burburay kala bar suuqa qudaarta ee magaaladan maadaama ay tahay meel beero badan ay ku yaalaan lagana keeno qudaar aad u fara badan suuqa isbitaalka oo suuqa ka soo horjeeda ayaa isagana burbur xoog leh ka muuqda waxa kale oo qarax uu saameeyay ajab ama kaalin shidaal oo halkan ku yiilay hadda ciidamada ammaanka ayaa gacanta ku haya magaalada Balcad waana mid ammaan ah kooxihii khawaarijta ee magaalada soo weeraray ayaa meed tiro badan halka ka qaatay khawaarijta jabka oo loo geystay waxa kamid ah inay ka dhimatay 12 qofood oo 5 kamid ah amba 4 iyo hal dhaawaca ay barta ugu dhinteen oo dhaawacin dib inuu dhinto nolosha 5 ay ku noqonayaan walxaale ka muuqdo waharaadiga gaariga leeyahay calaawiga haaye maleeshiyaadka al-shabaab ay ku soo weerareen magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe gaarigan oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa isla markaana ay kari weeday rataaskii ay ku ridayeen ciidamada degmada Balcad waxa uu soo gashay inuu ku qarxo halkan oo bartamaha magaalada waxaana ka haray gabiyahaantiisaba burburkana u jeedaan oo motorkiisa uu ka mid yahay ciidamada ayaana ku guuleystay kooxdii magaalada soo weerartay inay iska dhiciyaan iskana difaacaan kuwaas oo magaalada ka qaatay meyd aad u tiro badan waxa haraadiga aan aragnay hilba go'ay waa aragnay waa duugnay mahasba hilibaan ku duugnay arag guduuda motorkii oo Leila Calaawida waa kana kuwa kale ka haray oo jaqfaahana halkaas wataan soo tusay waxa waaye meeshan maalin walba hadaan anagu diyaar garoobina ciidamada in garab isiinin wax soo joogsanaya malo waa in ciidanka kale walaalkiisa uu ahaado saasa in uu sheegay oo billahi tawfiiq taliya ciidanka lugta Dayax Cabdi Cabdulle oo ku sugan magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa warbaahinta qaranka u sheegay inay tahay magaalada mid nabdoon isla markaana laga adkaaday kooxihii khawaarijta ee soo weeraray magaaladan kuwaas oo 10 laba ilaawana iyo jab aysan ka soo kabsan doonin kala kulmay geesiyaasha ciidamada xoogga dalka ee camaasiirta argagixisada ah oo saaka runtii jab xoog loogu geystay degmada Balcad wixii ay soo abaabulahayeen bishii Ramadaan oo dadku cibaadeysanayeen dhan meeshan ay ku fashilmeen ilaahay baa ku mahadsan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa ciidanka geesiyaasha ah ee qalabka sida ay ku sugan degmada Balcad iyo hareeraheeda halkan waa barta kantarool ee kulanka loo yaqaano waana halka uu ka bilowday dagaalka xoogiisu halkaas oo khawaarijtu ay kala kulmeen 10 lama ilaawana saddex jiho ay ka soo weerareen magaalada taasoo kala ah dhanka Mareeray oo xigta dhinaca webiga sidoo kale to dhanka Jowhar iyo magaalada Basra dhankeeda saddexdan jiho ee khawaarijtu ay ka soo weerartameen marna guulka ma aysan gaarin waxayna ku qaateen meyd aad u tiro badan ciidamada dawladda hal askari ayaa uga shahiiday halka khawaarijtana 12 kale ay uga dhinteen sida ay sheegeen saraakiisha magaaladan maxamed tarsan warbaahinta qaranka